gaday haku dayani waagune dadka ku dadaaliyo kala baro qofku daran nacaskana dib uga guro nacaskana dib uga guro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن شافعي كورتي سيدو كله يوتيوب channel ka daawanayso waa Shaafici Kurite fadlan tamarku ugu horeysay soo dhow subscribe noo saar channel kan si aad u noqoto asxaabta halka hore u joogto kaliya la maanta muuqaal cusub maanta harana inaan raashin ka wada bixino hees cusub oo soo qaaday Farxan Yare heesta magaceeda waxa la dhahaa hadal doqon kugu tiri waa kalmado waaweyn oo murtila dhihi karna marka waxa ku xigo aan wada dhageysano insha Allah. سواداركيسينبا بنانكان lagu qabtay kabacdi hadana sheekadu way soo bedeshay wuuf waxay noqotay xaafada dhexdeeda iyo meel la wada baashaalo faanteen alana qurbaan miya dariska miya qaraabada miya xasaga ma fahmin waxa ku xiga nagu wada dadka kala aqoono aragtida ku kala duwanay haku dayan qof maangudan iyo ruux daciife hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin macnaha de waxaan dhihi karnaa waa hees adiga yani qof wax lagu sheegayo marna de waana way noqon kartaa hadaladan oo kale marka odagu waa fadhiya lagama sheegay karo bariyahan uu aamusana oo Farxan marka hees balaay ka dhacdo dabka ka soo qaaday dadka kala aqoono aragtida ku kala duwanay haku dayan qof maangudan iyo ruux daciife hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin dabcigiisa ruux gaday haku dayani waagune dabcigiisa ruux gaday haku dayani waagune dadka ku dadaaliyo kala baro qofku daran nacaskana dib uga guro nacaskana dib uga guro tar amay hadal waaweyn waaye nacaskana dib uga guro waxa maqlo aan fahanteen I don't know wax heestan waxay ka adiga waa heeste horta ereyadeeda iyo qaabka loo duubay wax kasta horta way fadhiyaan inkastoo dameesha oo adiga xisbiye badan oo musharaxa ay odaygiiba de isku wada sharaxayaan oo meesha ay wada joogaan oo fahmi la aan fahanteen laakiin ereyadu waa in naba lagu marigi karo way fadhiyaan marka xogaa aan ku sii socono bal kuma sii dheeraad doonay dabcigiisa ruux gaday haku dayani waagune dabcigiisa ruux gaday haku dayani waagune dadka ku dadaaliyo kala baro qofku daran nacaskana dib uga guro nacaskana dib uga guro meesha waxaaba oo heesooya ku dhaw xeerka bacda howlku waa iska kuleyl mugta lambar badan oo raba in macnaha la doorto sanadkan soo socdo 21ka waa meesha tiish diyaar la ah wajiga iyo wado u tirtireen waa daaleenba fahanteen marka lambaradaas waxaan dhihi karnaa odayga de u fiir buugan harista waxaan kaaga dib u dhigaa damacyanu ku gey dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka kuguma dili karo ruuxa kugu nacam afka kuguma dili karo erayo waaweyn I don't know kulleeyay dabcan waxaan dhigi karnaa erayadan waa sida hore ku sheegay erayadan waa eriyo fadhiyo heestuna
maartay waxaan dhihi karnaa waa hees iyadana sidoo kale dabka laga soo qaaday dhanna waa la dhihi karaa dee safarkii lambarka hore oo tagay ayaa xoogaa laga daba geenayaa intaan waxaa la leeyahay Faataxa ku qaado lambarka hore oo tagay dee adugu waa garanaysiin bari ugu dambeeyay waxa waa wuxuu iska bulo waxay kala tageen gabadha lagu magacaabo Rasmareys fanaanada dee waa caadi ahayn oo dee fadhido marka waxaan is dhihi karnaa erayadan xoogaa way kulkulul yihiin ama ayada lagu sagootinaya anyway heesto dhamaystiran waxa ka arki kartaa aniga kuma sii dheeraanayno heesto dhamaystiran waxa ka daawo kartaa channelka Farxaan Yare ayaa la soo geliyay kulli heesto way fadhidaa kulli laftarkaaga hada inta ku dhamaan xagga ka soo dhamaystiran kartaa oga heesto waxay xiiseynaysaa haddaad mahadsantiin videoga daawashada daawateen fadlan haddaad ku cusubtahay channelka sidoo kale rukumo oo subscribe saar dana wadaag asxaabtaada inta kulmayna muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waxaan kaga tagnaa assalamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh